Madaxweynaha maamulka ACC Khaatumo iyo Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xamse ayaa socdaal la filayaa in ay wada galaan. Firdhiye ayaa la filayaa isla beri inuu gaaro dalka Jabuuti, halka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliyana la sheegay inuu halkaasi tegayo maalinta Axadda. Sidoo kale waxaa maalinta beri ah safar ugu baxaya dalka Jabuuti madaxweynaha Somalilan Dr. Cabdiraxmaan Ciro oo la sheegay inuu martiqaad ka helay madaxweynaha Jabuuti. Sida ay sheegayaan xogaha ayaa waxaa toddobaadkan Djibouti ka dhici doona kulamo gaar ah iyo kuwo wadajir ah oo madaxweynaha Jabuuti gogol u dhigay dhammaan wufuudda ka socota dhinacyada Somalilan, Soomaaliya iyo maamulka Khaatumo. Ilwareedyada aanu ka helnay gogosha madaxweynaha Jabuuti fidiyay waxa ay tibaaxaysaa in ujeedada kulanka uu yahay sidii maxaabiista Somalilan iyo kuwa Khaatumo la isku weydaarsan lahaa. Gogosha Jabuuti la dhigay ayay wararku sheegayaan in ay ka dhalatay kadib markii toddobaadkan uu fashilmay qorshe la doonayay in la isku dhaafsado maxaabiis oo ay ka mudaharaadeen dadka reer Burco. Qorshayaasha kale ee shirkaasi ku lamaansan ayaa ah kuwo quseeya dhammaan dhacdooyinkii sanadkii u dambeeyay mandaqadda ka aloosnaa, waa gobollada Sool, Sanaag, Cayn ee muranka uu ka taagan yahay. Haddaba waxaa la rajeynayaa in maamulka ACC Khaatumo oo dadkiisa ay u aqoonsadeen in maamul ka mid ah maamulada Soomaaliya uu yahay in uu caddeeyo safarkiisa waxa uu salka ku hayo madaxweynaha ACC Khaatumo, maadaama walaac laga qabo in wadahadallada dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti ay dhinacyada ka riixayso uu sababo in ACC Khaatumo sideedii hore ay Somalilan ku biirto, halka Puntland ay arrinkaasi diidan tahay inay maamulna noqoto madax bannaan iyo inay Somalilan ku biiraanba. Hase yeeshee ay u hanqal taagayaan in ACC Khaatumo ay ka mid noqoto gobollada Puntland. Haddaba waxaa la arki doonaa toddobaadkan kulamadaasi natiijadooda.